adduunyo maxaan soo markaad qosashaan qandhadaayo qalbiga qodob leey biixiyay qadiya cashatoona maquutee hamuunyada meelaha qabtaaye alla maxaan dhaanta tuma intaan muusiga soo bixin laba kala barida kala warla tan isoo gashana maxay alla waa saaxiibada aragaagu abshir in adeer macaanto waxaa la yidhi khiyaartii kala baada arrin baa kala geysay ii warra codragley see tahay in adeer xaalada ka warro wacdalaa ku jecla in adeere khayr sheeg anigu waa jeclaa moogtaa warkaage xaalada ka sheekee maxaad haysaa haye in adeere war baan ku hayaa gala baxoodi laa xalay khayr sheeg wiilkaagi baa naa guursaday haye ayadiis kuma farx laakin adoo ku farxd oo walaal reer dhisay walaal macaani dadka maxaa ka qabta sida lagu arkay reer dhismay oo aan lagu farxin waaba arrin cajiib gabar ajanabihu guursay maasha allah tabaarakallah naa bandar baa jiiftiin haye iyay ka taa ajaniibtuga laan dheeraysan walaal waa ciddee aa qabiilkee o maraykan ma balaag american ba haye kuwii cadcadaa inda buluug inaa lilaahi naede qurux ilaahay baa qurux irinta idinka soo gey nooc ayra shabaad dhalaysana dib dhowrka jooga haye firkiida dhagaa bedelmayo no moor qof dambe oo madow haye naa wiilkaaga awalba qurux dhasho wallahi adna hadda waxaaba tahay reer magaciisiiye haa walaalay macaane waa barwaaqo gaadhay waxaa layi ninkii ilaahay cood la damco caruurteedu siiya hadda markii ilaahay qurux kula damco iyo wanaag iyo khayr iyo qurux soo hooyato lagala holo soconaysa ilaahay naag ayrasho wiilkaaga usoo diiwaa indhoo baluugyihi allahu akbar naa walaalay macaane maxaata uur bay leedaha waan dhisaynaa naa walaalay macaane waxaan maqli jira gablan guri lama geeyo naa waaba cajib ee uur haday guriga la geynaye la dhisaayo maasha allah walaalay macaan ilaahay isku barakeeyo salaaniyan bali iga gaarsii markii xaaladan adduun weli ku jira laga baxaan aroos waxaan u dhigaynaa cajiib arooska qarniga ah maba sugi karo in adeeray macaani maba sugi karo arooskaas I can't wait in adeeray macaan saas in dhabarti arooska ka booday allah khayr baan ku rajeynaya in abtiin adeer macaanto barakow saaxiibaday qaaliye haye in adeer macaanto haye walaal haye ilaahay amarkiis bay ku dhacda ilaahay u barakay reerkooda oo wax ka dheefsii maasha allah tabaaraka allah yaa weeye soo gala hooyo wiilkaygiiyow seetaha waa fiicna hooyo haa hooyo macaane seetaha aniga jacaylkaygi waa isla soconnaa waa maasantahay hooyo ma jacaylkaagiibaa jacaylkaygii hooyo waa xaaskaygii wey maasha allah wax badan baa qarinayay maanta dabca inaan kaaga farxiyo aad u qarinaysa hooyo ii waran seetaha xaalada ka waran aniga waxaa lay dhahaa hooyo faahiyo waxaan ahay wiilkaan hooyadiis maasha allah wiil fiican kabta hooyo ma wiil fiican baan dhala cod kori maqal xoogaa dhagahan jika ah wiil fiican la soo Soomaaliga ku hadashaa الله أو سومالي وين تقعنا ميا ما شاء الله ما سنتها يا ما أنا وما سنتها ما شاء الله سادوا ما شاء الله يا هاي مكيات بقى يا لك يانا ما شاء الله وأوكي ونقلن ما شاء الله هي ما حكدوكو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هو ما شاء الله يا قف عجيبة تصومالي توريس ده يمكن فريسول هاي ورهي ده حاجة كسر إيش أنا دعاء عليه ما قصار إلهه ناقبار هم يلسا أسجد ودار هاي دعاء هذه إلهه يهير قليواتا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هاي لكن قبل ده وحان ربع إن جوريجا adinka ay neelan noolaana rabnaa qolkaas inaan soo degno cidlood ah laakiin ma garanayo de sida aabba looga dhaafay aabba maxaa kaa quseeyay anaa ku dhalay anaa hooyada ah rag baa intaa dheerta ayaa kula hadli kara saad rabtid baad u noolaanaysaa ma adiga intaad naag ii keentay gabar ii keentay weliba
aan Soomaali ahayn oo dheer ah oo Kenyan oo saan ugu Allah ma sha Allah ayaa kugu faraxsan ilaahay baa hooyo ikaasiye ma sha Allah caasha lagu dhahaa hooyo sida Soomaaliga si walaal iska arag hooyo ma sha anigu waxaan noqonayaa hooyadii adduunka aad ku taamayso ugu wanaagsanayd soo dhawow way qiiraysan tahay ma sha Allah ilaahay baa nakaasiyay ma sha Allah hooyo waabataan rabay ma aaba kula hadli kara aan noo joogta way maxaa ku rabteen laan dheeranimo hooyo dhaga Soomaalida qaylo tuuriyo baabaan baris ka ga hooyada way jaafiirsa reer qaylo waa socda hooyada xabaara waraani waxaas lama rabo adigu wada aragtay laga Soomaalida maxaa ka shaqeysaa hooyo maxaa mas'al hooyo aniga macalina nahay waa bana aqoon yahay وما ينسعب لا إله إلا الله محمد رسول الله ويبقى عم برتي هاي وحن كويدي غيركي نحاجات دقيقين هابها مساس غيركينا هابها مساس معها هابها حقا وفعي ونندر هي وناكسن وي حتى هويدا waa hooyo dheer أنا وصلنا دير أنا يكان هي مركا إسرعنا وحال ده هويدا عمل يا hooyada waa arab wahay abayna arab kala way ma annagu waxaan nahaa hooyada Soomaaliyeed ma sha Allah ya hooyada asagaan ku curta waa fast bankaygi ha ma sha Allah wiilkana qabta hooyo ha kaligiis baan carruur hooyadan nakala ha waa fast bomb iyo last bomb ugu iyo ma Soomaali kula hadlay ana madalin miya hooyo ya hooyo lima kala madalin marka asaga dhalay oo iga filay ilmadan waa iska daay bisa corona dhaha ما فهمت نصيبك وكسوسية يسكا بحسن مدى ما أركي يسكا بحسن الحمد لله ورينا كلا بسنيا أنا بس فير نو أبا أنا ونكت سطا يقولي نكت أنت دونت نايو قرصو ما شفتها يا الله ما يدي ما وحاس دي ما وحاس ميك دي ما أدو هذا عرو إلى الرشيد يا أنا إيه وهو في عن ناكلا ويد لا يا فراس كلا دو هقولي لا أنا يلا شيلين أنا سيان سوسو قرصني أنت شو شرودي أنا سكوسو قرصني وحبها كبدلي وانا ما كبح بداس هي سما ذكرن وكان قرقي هو يلي واتن أباينا وكبريا إن شاء الله سما ذكرن ديارو هني labada yada gacmaha saysan oo wala la yaabaan gacanta haysta markii la adiga waliba ku xarara dad qaadi kartid masaa qaad ka suuq dhexmaraysa ma wala helo waa dadka waa dadkii waxa weeye bis ma wala helo الله ما شاء الله نصيب ويدي متى سو دو غروب سو دو الله waxaan jira ilaahay ma ku gargaara bas gad gad bukuut ee way gargaara hooyo aabana hadda wadka ana gaars horta الله ما wadna fartu ku haya aabaan garanaya waa nin dhaqanka jecel waa nin Soomaalinimada jecel waa nin jecel in qoyska meel looga bixin war waxaas ana qoyska Soomaaliyeed baa ma jecla in meel looga bixin wariya hooyo waxaan ku sheegaa aniga dhageyso naag baad waxaad u tahay curad iyo guri dambeys marka aaba wax jilaaca iga dhaaf soo anigu ma joogo ya xusulkada inta xabaal ka sareeyo ya sida anigu aan rabiyo adigu sida rabtay xaaji ahaanaysa maalinta dhinta Ilaahay baa qabta waa sax ma fahanti waxa iga dhaaf hadaad horta naag Soomaaliya aadan ii keenin arooska qarnigan ku dhigaya hooyo naag Soomaaliya anigu Soomaaliya ma rabo qayl ay tahay waxaas ma rabo nimankoodana wax kale naagoodana wax kale way ma fahanti marka waxa iga dhaaf arooska qarnigan ku dhigaya asaga ka dhaadhacay asaga ana ka dhaadhicinayo hooyo macaan idinkuna hooyo macaan Ilaahay xageed degantiin hada maalmahan hooyo dhan halkaas aan degan 5 star ma sha Allah hooyo macaan gurigan baan ku dajinaya arooska qarnigan ku dhigaya gabadha halka waxay rabaan baan siinaya nolosha rafid ku noolaanaysa ana hooyaday hooyo macaan ana hooyo gabadhayda haye hooyo ma santa haye sidoo kale haye hooyo soo dhawow yaa waa ku jeclaa hooyo aniga sidoo kale waa jeclaa haye maama haye maama khayr badan haye ma santa hooyo waa sii soconayna ila soo laabano waa dhima hooyo ma guriga hooyada weeye haye waa salaameynaya haye Soomaaliya waxaan ku maqli jiray coming soon arooskeena inkastoo waayahan iska daayay siyaasada Soomaaliya dhageysigooda laakiin maanta taas way ka duwanta waxaan u wadaa asxaabta Facebook iigu jirta coming soon arooska wiilkayga iyo boqorada uu ka soo calmaday Afrikaan oo idil waa naag Kenyan landera Caasha Fanaxley saddex baa noqonaya alxamdulillah aad baan ugu qaracsana bal aan qaro hambaliyo wiilkayga wadnahay dhagle curadkayga iyo guri dambayskayga iyo waliba atirashada Caasha Fanaxley
ما شاء الله ما شاء الله بروان أضافة يا جروب فاميلي جينا سك ولا الله أن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام ولا الله يجعل أو يرد الشيء وأنا دونك أجعل هاي ولا الله يا واحد بدن بان ورفر حد يقصر لإذين كان لكن ما أنت كي وفر حد بنا أيان إذين وذا ويل كابتجي هوريرته وهيدنا وضنها يدقله ورما هينكره واجور سدي وحن لحدنا qoys aynu u baahnay aan la xididno Soomaali aan ahayn oo Kenyaan ah naaqalanca quruxley ah timo dhabarka joogan xoog aqoon yahanad iskuul bay dhigtaa oo macallimad marka walaalayaal waa kaas hambaliyada ay tusa waa mahadsantiin saaxiibayaalo السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا بابا أباك وقتنا لا فرح شيء لقوا فرين بعد بقراعي ها حاجي وحبان يلا قرقرية إيه ورن ساعتها همبلي وحبان كم أنت كبحنا يا فيسبوك كجتها ها نود إيه ورن حاج الحمد لله ساعتها الله وحن مقل تشري هرت ولي قفر حد أنت ما لك نحن لو دمي فرحة الله ما أنت وأنا حنت وحلو أنت هديف قفر حد أنت وتشري لها هرت تشري وتشري لها قفر حد أنت أنا ما أنت ودي لها ولا حول هذا عاي كل ما يعرف حد وما صور إيميل شيء إن كل شيء كان ربي فيسبوك واتس أب ما كون مشغول صناعي وقول عليه لها لا هاي هرت واحد هذا بشارة ده هرت إيش ما حب بشارة ورهرت ده هالمر هرت أضاق واطن بيه ورقحي ما تشوفنا ده بشارة أنا قلنا بالخير إيري ويل كان بقركها عرض كي بيسانيها بلداتشيها أنا اسكدلني وحسوا قرص جوار بقرات قروحه أقوانت لله ما شاء الله سيد الله شديه ها وسوق وإيه كان يبي هي وسوق قرص ها ودنا رجله سوق قرص ودنا هاي رجله وسوق قرص قبل قروح ليه وكمان أنا أقول هو عاد ربطه وياش سماه شارك أنت اسكت دم يشرب قبل ما يردين وحس ولا جتة لكن يان هولان ديره أفريقيا كتبت هالك عرق وتقضي حاجة عنك كتبت عرق ودرسانة كهراء قبل أبو إيه كان نعم حاتي الله أكبر لا يبغى يقول بس كتبت قاعد بقوت ولا قاعد بنتاجنا حاتي يوسف ما حد مودع رجع هنا شو ما كان ممكن الشك سدعي هذا كمان قبل أوكي هذا الكيت جديد جسم حاتي ويل كوجو سيد مريسي ويل كاني وحسوا قرصة جبر dadka Afrika u laan dheeray sanad jaamacadka cirka u diray 2017kii oo Kenyaan ah Uhuru adeer ah quruxda jamaal hadaynu dagaal galno ay qof saa ku tiraahdo subax haday ma fahmi kartid ila farxade maxay ka fiirinaysaa saafir artaaj ma faraxay sida ma dhacay halka sad maraysa maanta war baan ku hayaa waxba ha isku leeynin intuu ninkaaga naag Soomaaliya oo aad kunta mageel baan leenahay mise lacag baan haysanaa intuu naag Soomaaliya kan ku keen la wuxuu ku keen naag Irish ah oo Kenyaan ah maxaa ku diisay cajiib ah Irish Kenyaan miyaas garab walaa laan dheerani baan ka wadaa macnaha waa dadka deex gacmeedka cirka u diray 2017 marka anagu qoriyaas ku haysteen Soomaaliya isku dagaalay maya naag laan dheeraa weey caadi iska dhig sidaj Uhuru waa adeero ah Uhuru ya ha marka miyaad ku faraxsan tahay inuu keenay gabadha Junabiga guriga keenay aniga ما إلا سان تان أقول فرح ماما أنا وقت كلام أقول فرح دونا هو بدل ما تصير أو أنشان فرسين يقول بشارين نجرا هو بدل ما صار أنت أقول فرح أنا راح أكلم شباب أنت قرنا يا ما تكشوكتي ما تكشوكتي هذا فيري وربان كوايا وربان ويل كي فرحدي أرتا وري ما هذا هذا يرتقف فاهوضة أما فاهو وحكار سويل كي وحكش يسا أما وحصة ما ينسى هرتا محل إيه وقشة وأنا بحب إنها إيه بدرنني بس هو ديار جرو ويل كي ناروسكيس يا وصو ديار جرو ويل كي ناروسكيس waxaad rabtaa intaad gabadh keentaan gurigan Junabiga soo kaxaysataan inaad ka aroostaan halkan ها xuniyaa xad keenaysaa aduu yaa xagaad ka keenaysaa xuniyaa adoo waad kibirsantahay halkan ma Soomaaliyeed u malays oo wali xiyaa kugu jiray wax ma ku sheega gurigan haddaan gabadhaas wiilkay keensa ay soo gareynin adiga asaga adaa fudud waad baxaysaa haatidi adiga asaga adaa gurigan ku fudud هذا كما سكتي gabadha la keenay Junabiga waa fudud ma iska oo aniga oo hadaan beel daajahayga boqorka aan ku curtay
يا هذا أنا ويل بالعانت وكان ويل كجورك سكما فرح ويل كجورك سما ديدنيه waxaan ka naxsanay waxa aad leedahay marka waxaad rabtay ajnabi baa la keenaya gabar Soomaaliyeed oo bayuur oo barxal isoo helaya baan ajnabi guriga keensanaya ka aroosiya xigmadaas maxay horta halkii baa taagan tahay maalintii aanu soo qaxan 1991 meeshii aad taagneed baa taagan maada ilbixin ismaadan bedelin adduunka caalamka lamaada qabsan waxaa ma maqashid wallahi billahi wiilkaas ka siimaa qasaaran wali kula joog wax ma ku sheegaano su'aal hadda hadalka su'aal ajnabi hadan kula guurso ma ilbaxaya adiga adigu anaad qabtay maxaad naag faraysaa anoo 10 wadan kulmiyaa qabtay Mareykan Kanadiyaan Soomaali Hindi adduunka noocaan ahayn ma jirtay ilbaxnimo fariidnimo naagnimo naag reerkeeda haysata ninkoo koorin adiga qorta naag la keentay inaad reehade ana inta soo dhan kugu rabee ma shaxrad kar wallahi hay baa gashay inaad ka daa ilmaha yar ee aad dhashay wiilkaagiya ee qurbaha jooga ee meesha fog yimid ee ku koray halkan hogaankiisa raacin ee la tali wax u sheeg qofka duu xaaligu ka weyn yahay de qofka duu ka weyn gees ka weyn baa leeyahay moogta maya inaad iska daa nin weyn oo way soo jireen ahay ma qurux badna Soomaalida bas baan ku maqlay nin weyn oo way soo jireen aad dumarka tii waxaan la wadaaga caashaq wax ma ku sheegaa wiilkayga farxadiisa waa muqadas lama taabtaan weeye hadda masaafta ma kartaa inaad ha haday ku dhibayso arinta aadan ka qayb qaadan wiilkayga farxadiisa aan soo support garin karin baa qof riix bax soo ma ku qanacsan yahay marka bax inaad warayso ma ku qanacsan yahay ku qanacsan yahay ha bax haday ku dhibayso arintaas ma baxaye saan arki doona ما أركض دون هاي إذا كل واحد كلا شبي هاي واحد ياهو عقدة يا عورة عون ياهو ربي البكالي داف حوير والكاس مو منطقي كان ناويل كيف حدث مقدس قول له كذا والله سلاسل هذا استاك كذا يا صح وكبح يساعد صح ما شاء الله ولو أنت قبل هذا إلى ويل ستين دور شيء ما تعدنا وشوكتين سو فريسو نوع معني والدكي أكان فريسو دينا عادي فريسو أيوة ما سكت الكوفين ألقى ترتيب سوفر هالكان ترتيب أي قولي ورك كان قولي قوات تبي دوا كفر حسن تاعي والله الحمد لله وي واحد نوي ماني يا لا تهوي يا أبي أفيرين هنا تشوغان ينكله هاي وأم هوي أبي وي صوت توسي دي قولي كوتشران مرة دي أركان إلا صوت كله لا بيار بتاع بيار كودوني يعني هاي ولا بس أبا أنا أرجع مركور بس هوي ما يا هابا ربا مكوري أبا بتاعه أبا هي واحد نين كلا صعدا نينك درع استماع ما أنا أبغى قبل يدي أنا وحاسك يوي مين هو يكون شيء حاسك مين هو يكون شيء هاي وين شكل أنا نقول سيدا قبل صومالي حتى ويقرأنا ساي لا هذا قبل السلام والله قد هذا كان واقع أباي سلام هابو ساتا هابو محا وانا بورها فين هابو حاجة صدق تقولي أنا سوى بغنيس أبا قبل يدي شيء ما دادي تاني هابو ما وشيء ميان هاي صوتي ما نتري هاي أنا قلت لي وأنا وشيء ولا ده ها أبو لي هو سجال كذي بحد قاعي سجال كذي يقوي قبل يقوي سجال كذي يعني قلت يا كلا ده هذا وويل بس ده هذا ما أنت صار ما يصوتي ما أنت نلقي ويل ويو وليبا وحلي أضوي أوجي سويجي أنا كم تانا أمل ودرا وليبا وخلاف صندع متانا عمل باودريمي متانا باودريمي متانا باودريمي ساسا كودم بيسي
ma iima dambeynina aabe gabadhaasaan soo guursaday dee ab miyaada ku faraxsanayn gabadha waa iyo dee waddankaan joogno wey dadka dega wey wadankee dekan aan joogno af jooga looma adeega baa la yidhi iyadiga am ade aabo magacaa hay aabaysane ku xushmaynaysaa aabo maxaa magacaa kor ula hadal si fiican intaa ugu fadhiisay magayga waa Josephine. ya josephine baa layaa josephine aniga hataa magaca way iga bedelaysaa josephine ayo Josephine iyo Hanaf. josephine iyo hanaf hanaf josephine hanaf hadda weliba waxay la baxday fanaxda qolo baata Meru. meeru Ha. waa meeru mehersatay mehersateen ya may ayaama dhan baa ku wada soconay boyfriend baa ku wada socon Ha. haati hadda markii aan arkay inay xaamilo tahayna farantiga isku gelinaynaa mar dhow hooyo mayna kuu sheegin xaflad weyn baa dhiganaynaa xaggaad ku dhiganaysaa hooyaa noo dhigaysa adiguna miyaada noo dhigeen aabe oo see wax kaa yihin aabe gabadha horteeda ugu ceebeen may maqli istaba qabo haddaad moogtahay haddaad fayowdahay haddaad dhowdahay istaba qabo see baan isku haddaad dhowdahay istaba qabo ade reerkiina xaggee degan yihiin dee waddankii digay Waa meeshii. wada Meru. reerkiina aad kaco ma aadisa de aabe anaa raacaya dee kaca gurigiina orda Aabo maxaa ku kaca sameeyay? guriga bax gurigiina maxay kugu samaysa waa runteeda Maxaa ku kaca sameeyay gurigiina aabo? kaca ade istaag ade Maxaa aabo? kaca gurigiina istaag Waxayna kaca ade ilmahana nabada kuu kala keena kaca ade guri adiga ilmuhu iga baxa guriga kaca istaag ninkeegna. waa israacina inaken naba hadduu noo diida dhib male aba dhib male hooya kale miyaada la hadlay de horta u kaadi de gabadha waa culus tahay gabadha waa culus tahay kaadi guriga bax maxaa dhacay miyaad u sheegin in aroos loo dhigayso walaa ilmaha qeylada iga daa war miyaad waaranta nabada ilmaha qeylada sorry bella ma aadasin sorry mami Allah hooyo maxaa aba adana way dhalaysaa gabadhu halkaa ku dhalinayaa anaa jooga Allah haba. isbitaalka ku shareeyaan geenaya Kenya ina keen Habaaga ba fiican ma. ina keen umay hayso noo hadlay si khaldana Wari aabo. ina keen Wari aabo fiican ma. ina keen hooya laftigaada waxba iima sheegin may maanta ay u gid hooyo ma ma soo laaban dhegaysan ninkan hadalkiisa Aabo. Hay. dee way taaganta wa miyaad ku cayaaraysaa Hay aabo. Naya been aabo. baa lagu soo sheegay Hay. been baa lagu soo sheegay guriga lagama rabee meel lagaa rabo anaa raba anaa wato walba anaa raba la sheekaysanaa abba maanta isugu kaayo dambaysa war sii daniyo maanta isugu kaayo dambaysa sankuraaga xunka baa waxay ugu faanaysa ma qaadanayo midba ducayaha ma qaado ma qaadanayo midna ma qaadanayo waxa u dhexeeya ma jiraan waxaan qaadanaya male ducayaha ma qaado waxaan u qaatay midkaan u dhexayn baa qaatay so eg way dhalaysaa hadda hadday foole qaato aniga waxaan rabay faraantiga inaa xirto guriga laga soo noqonina wuxuu yihi maadaan adeerkaa inan fiican kuu dhalin maxaa ku ag taagay taayada maxaa wiilkay ku nanaato meel maadar yaran lahayn wadnaha lagugu dhufay waryaa wadnaha lagu waryaa war maxay ahay warwaan nacabaysaa aabe kula aabe gurigayga aabe useless boqol useless waxaad ii sheegtay waan waxaa nacabaysa waay aad u cayrisa gabadha iyo wiilka ma qofkanaad ii sheegaysa wax dhawan haysta anigu ya naagsay u tahaadoobeen way ku dhaafta maanta waad i ceebaysa wallaahi waad i ceebaysa hadduusan soo calaalin waxa soo socda war afkaaga ida biyoolniyo waxa soo socda ninkaan garan war afkaaga ida biyoolniyo ma is dhegaysanaa waxa soo socda ninkaan garan waxa jooga ma gartaa waxa jooga ninkaan garan waxa soo socda ma gartaa leeyahay hadduusan soo calaalin maradan ku jiro ri baa ku jirta ri maye ayl baa ku jirta qormadow yaa kaala maxaad ajnabiga iskaga dhigtaa horta isaga dhigtaaya maye maxaad gaalada isaga dhigta orad nagad dadka adigu ilaah ugu tagta tigaasaa ahaan jiray wiil waa tigi baa layidhi kaas waa tigi ahaan jiray ilaahay digiyo dabeentana biidima odhan karo balaayay soomaali kuula warwareegta haa hooyo waran maxaa maanta la aamusan tahay yaa hooyo waktiba kuuma hel maanta waxaan saaxiibaday baan waxaan kula sheekaysanayay inaan wax u qorqoree jaatin may dhihi jireen qolada ingiriiska taqaanaa ma karaa af soom ereygaas
haye hooyo maxaa dhacay maanta yaa hooyo hooyo maanta ma xanuunsanaysaa hooyo maleeri maa ku haysa hooyo hooyo maalintii aabba kaa saxnaa iigu soo celi ereygaas maalintii annaga ajaaniba guursanaya ajnabi ah aan soomaali ahayn aabba kaa saxnaa jacaylkeedii baa kaa bato aa la wareersantaa war saas weeye naagaha nimanka waa isjeclaysiiyaan waa dad cajiiba lama helo maasha allah haye haddaysan kugu qaylin waa alxamdulilaahi naagta ilmihii bay igala tagtay maxaa tiri ilmihii hee bay igala tagtay hadda xaggee bay la aado gurigoodii bay heerkoo soo tusisaayeen ayada hadday keenaysaa reerkooda hagee degan yihin gurigooda maada aqoon miyaa waxaan maalintay dhashaan oo ay weynaato bay sida xooluhu u kala bayraan oo maalintii ilmuhu naaska hooyadii ka go-o oo dunyadu soo ma kala bayraan haa sidaas kale u kala bayraan maalintii mindhaa hooyadeed naaskii ay ka goysay waa ugu dambeysay anigana wiilkaygi way igala goosatay aniga dhul meelaan u doono ma garanayo aabbo nin weyn buu ahaa aabbahay isagoo ilaah labadaa kala hoo saas baa dhacday inaan ducada qaataa la ii qaati allah arrintaas habaarna ma qaadan ducana ma qaadan wax u dhexeeya ma leh buu igu yidhi waryaa waa ninka waryaa haddaan maalintii arrintaas aan yeeli lahayn aniga adiguba maanta guul baan joognaa aad moodid gaanariyadii baryihii dagaalka suu noqday eeg si laga soo dhigay fiir waryaa boqolaftan baa dibadda lagu soo turay marka laga adeegtay yaa aabba naagtii ilmihii bay igala goosatay maxaa tidhi ilmihii bay igala goosatay gabadhii wanaagsanay waa ilmihii la goosatay yaabadaa reerka hadal baa iyo erey baad ku dhex tuurtay hadal iyo erey hadal baad ka dhex tartay ilmihii bay igala goosatay ma naladaad weli haysaa ma soo waantoodi war heedhe aylaadi war ma adaa xumeeyey gabadha ma adaa xumeeyey gabadha waryaa ilaa hadalba bal warkaysay hadduu xidhi waa dhawo war kama dherigto waa dhulo biyo kama dherigo waa ilo dayma kama dherigtee warkaysii hadda ii waran meesha ila jecleed baan taagna xaggee kula jeclaa soo erey reer intaa kuu keensaday weligeed baa ajnabi la guursan jiray oo dadku aadan iyo xaawa wada dhalay waxaa koonkan wada saaran adaana iga erey iga riday meeshaan rabay inaa faraanti iyo fargal ii gelisi maad eedii haysataa dagoolahaaga u qabsati tadigii qabsanayso si nin igu waran isnooleeyo gabadha ilmihii bay igala goosatay meel oo doonana ma garanayo ilmihii bay igala goosatay ha wiilkii bay ka haysataa ha horta wiil soo mu ahayn ha weliba adaa kuugu magac dara inaad igu magacdarta ma ahayn way adyad labaade dhegayso inaad jinuba dhalay aniga magacay ku darta ma ahayn waxaan ku idhi maad aabaheedii raadisid iyo hooyadeedii xagee ka raadsha miyaadan soo baran markii hore yaa lagaa qoorsadaa oday meel taagan keliyaan arkay oo maalintaas ay igu dubaysay isagana miyuu dhintay markaa meel aaday maaqa ayana taleefonka waa baktiisa imise bilood buu jiro ilmuhu intaa idinka maqnaan ayaabihii dhashaa naga tagtay saas markaa u dhaqaaqnaa way dhashay hadda makula oyna markaa maxaan kuu qabanaa ii ducee soo waantooda waaye ku duceeyey gabadh soomaaliya inaan kugu duceeyo sharaf iyo cis iyo milgele ba iga raalaba aab macaan iga raalaba way dhib male abo aabe suuku weekaada iga dara
soo kuga hooyo iska labada dhalaba meesha soo taagan baa barasa qorarku bas hooyo macaane bas anaa gabar fiican oo walaalkay dhali kuu doonaye bas waxaan alla gora aad moodi wiyo wiy والله دلائي الله وان خلطمي ماندو واش حاجي الله يا الله وان خلطم هوي وحاني الى الروم بياساي يا adiga waxa ka dhaciyay hoota iyo ka shaqeeyay waxa beenta abada waa wax tagay weey aanada dabad la qabay u duco wiilkii meel loo raadin doonaa ma ka yaabana ilaahay sabiir akhraa kaaga dhigo kowde sabiir adduun iyo bil aakhir kan ku tacaan garan mayne ilaahay sabiir kaaga dhigo aabe ku soo shafeecadaada dadka la qaar maxay muslim ma ahayn talo ayada muslim yada hayna aabe ilaahay waxa niyadaada ka saaro waan jeclaa laakiin haddii ay ka baxday arrin kugu dhacday marba jabkaagu iyo dhibtaadu fashilid mar inaad fashilinto marba guushaada tahay guul inay ku ahaato laga yaaba aabe ha ku dayin dadka waxaa sameeya nin laga qoorsado ma jirto xoolaha inta neef meel laga doono laga qoorsado nin laga qoorsado haddeer noqotay oo ilmihiisii la qaatay oo meel aadan la garanaynin in ilaahay noo soo celiyana waa ku ducaysanaynaa gabadh soomaaliyeed oo milge iyo sharaf lena waa kugu ducaynaya aabe waxaa mar dambe waxaas kula niyadaada gelin waxaa mar dambe niyadaada ilaahay khayr ha ku siiyo ilaahay khayr ha ku siiyo waxaa ilaahay niyadaada kaaga masuuco macnaha welwelin aabe ilaahay dambigeena ha dhaafo kuwa adiga kuwa ah sidoo kale ahaana الله سبحانه soo أرطنا الله وحفظه إن شاء الله ilaahay u soo dhaweey